حزبي هو كعاف ما تغبيها هي معناها قبيل عدالة برا انت سوا كعاف ما تغبيها وحزبي انت سنة قدوة حزبيgan shacabka Soomaaliyeed oo xisbi ay hogaaminayaan dad dhalinyaro ah runtiina dhalinyarada waxa la yiraahdaa waa lafdhabarka ummadda Soomaaliyeed hadda dhalinyarada iyada laga rabaa inay fahmaan xisbiyada samaysmaya xisbiga ay leeyihiin iyo kaysa waxaan ka dareemay xisbigan inuu wato sifooyin cajiiba wadaninimo ka dareemaya waxaan ka dareemayaa inuu rabo inuu isku haayo dawladnimadii waana wax lagu farxo in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta Jaanis uu furan yahay maalinba meel ay ahayd siyaasadda Soomaaliya maanta waa maalintii dhalinyarada maalintii odayaasha waa la soo dhaafay maalintii dhalinyarada ayaa la maraya waayo hal door dhalinyaro ayaa xisbigan hogaaminaya xisbiga shacabka Soomaaliyeed xisbiga shacabka Soomaaliyeed maanta xafladiisa la daafurayo in ay naga bedelaan tan ayada ah dawladda maanta jirta ama markaa xukunka haysa waxay ay ka khaldan tahay lagu socdo dawladnimada ma aha sharciga khayr wixii dawladda ay samayso inay u sacabtunto ma aha sharciga khayr wixii dawladda ka yimaada aad celisana ma aha oo aad radido dawladnimada waxaa weeyaan wixii saxan in madaxda lagu taageero lagu abaalmariyo lagu ammaano lagu garab qabto waxa ay ku qaldameenna ayagoo aan la dhaleecaynaynin oo aan la aflagaadaynaynin oo aan sharaftooda meel looga dhacaynin in la saxo xisbiga shacabka Soomaaliyeed markaad aragtay hadda maxaa kugu soo dhacaya markiiba waxa kugu soo dhacaya markiiba ujeedada magaca uu xambaarsan yahay waxa kugu soo dhacaya markiiba mabaadiida ka dambaysa magaca maxaa yeelay shacab markii la yiri automatically waxa fahmaysaa xisbiga dhimasho xoog saaray ee fahmaysaa horta beledkan Soomaaliya waxa ragaadiyay ama baabiyay saddex shay waxa ugu horeeya qaad qawiil qori waxaana lagu bedeli karaa taqwo tacliin toobo ku dhaqanka shariicada islaamka haddii arrimahaas isbiirsadaan wadanka wuxuu gaarayaa nabad iyo amni buuxa xisbiyaduna waa isku garab waa isku tiirsan yihiin waa idin taageersannahay waa idin jecelnahay dhammaantiin xisbiga shacabka Soomaaliyeed soo dhawaada xisbiga shacabka Soomaaliyeed ujeedadiisa waa soo celinta awoodda shacabka si ay u doortaan cidda ay rabaan ujeedada xisbiga waa in awoodda ay gasho shacabka Soomaaliyeed halka maanta ay taagan tahay dad yar oo kooban inay awoodda waddanka ay isu koobaan marka xisbiga shacabka Soomaaliyeed waxaan diyaarinaynaa inaan soo celino qarannimadii waa hore jiri jirtay inaan dib u soo celino waxaan ku soo celin karnaa waxay tahay in la isu tanaasulo dalkana laga shaqeeyo dimuqraadiyadda in qof walba codkiisa xor yahay qof kasta mas-uul ah xilka dowladda taanayana ay shacabku soo doortaan kala yimaada